siyaasiga Cabdi Yuusuf Ducaale Boobe oo hore xilal wasiirnimo uga soo qabtay xukuumadda Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu naqdiyay wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya oo uu sheegay in waji kale loo bedelay waa mowduuc yar oo kooban maxaa cusub ay ka dhacay dalka Turkiga doorkan sidii xukuumadana aan la mahdin dhaqanka u ahayd xilalkii lamaanaha iyo aaranka baaha ayaa iyagoo ku safray baasaboorka ajnabiga mar kale tagay dalka Turkiga inagoo ka wada dhareegsan in wada hadalladii xukuumaddeenu inagu qarqarsiyay joogsadeen bishii March 2015 Istanbul waa foolad kaatay oo markan waa Ankara oo bunkii iyo saloolkiiba Turkiga iyo Soomaaliya horteen ku sii dubteen iyadoo aan waxba laga weydiin gudidii israaf raadin ku sheeg ahayd ee dhawaan magacaabisteeda la isku hambalyeynayay ayaa dawladda la boobay sidii wax masiibo laga cararayo la aqoonsigii iyo i'tiraafkii ayaa la soo raadinaya i'tiraafkana sidiisaba lama raadiyo meel uu yaalo oo loogu hagaagaya ma jirtee waa la sameystaa markaas isaga oo laafiyoonaya la iibgeeya wada hadalladan ka dhacay Turkiga doorkan waxa ku cusbaa kulankii aqoon-yahanka ee ergooyinka saddexanka ah dhex maray go'aankii xeer dejinta Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda ugu fasaxay inay wada hadallo gasho February 2012 waxa uu idmanaa oo kaliya inay xukuumaddu wada hadallada kali ku noqoto oo ay mas'uuliyaddeeda qaado arrintan ugubka ee aqoon-yahanka waxaan u aragnaa dhacdo bilow iyo ballaysinba oo ah in berri haddii eebba idmo aynu maqallo rugihii ganacsiga salaadiintii culimadii iyo qaar kale oo badan ayaa kulmaya xeerkuna sidaa uma dhigayn oo xukuumadda oo kaliya ayaa u idmanayd inay wada hadallada ka qayb gasho dhacdooyinkan dhinacyada aan u idmanayn wada hadallada lagu marti qaadaya waa qaar ay xukuumaddu ku wiiqayso kuna minjaxaabinayso qarannimada iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland Yuusuf Garaad oo wada hadallada aqoon-yahanka Soomaaliya uga qayb galay ayaanu Facebook isku helay waa la wada ogyahay oo wax qarsoon ma ay ahayn waxaanu ii soo qoray wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaanu brainstorming ku sameeynaa waa jimicsi maskaxeed goorma ayuu masiirkeennii shuqul NGO noqday oo lala tagay laababka Ankara ku yaala dawladda Turkiga ayaynu ka qaylinaynay hay'addan cilmi baarista ee Ihsaanna yaa baasay inoo soo arkay waa su'aalo in jawaabtooda lala sarakaca ku fiican tahay xukuumaddan inala ambatay tirsigii wargeyska geeska Afrika ee soo baxay 22 bishan afraad wuxuu qoray 4 qodob oo shirka aqoon-yahanka lagaga heshiiyay oo laba ka mid ay ahaayeen kow in samirnaaro iyo shirar lagaga wada hadlo dadka Soomaalida guud ahaantood iyo khilaafka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya oo shirkan lagaga hadlay la sii wado in hay'adda Ihsaan Peace Foundation ay hogaamiso doodaha ku saabsan khilaafaadka Soomaaliland iyo Soomaaliya waa urur madax bannaan oo Turkiya kana shaqeeya cilmi baarista iyo dimuqraadiyadda Cabdi Yuusuf Ducaale Boobe waxa uu ugu baaqay madaxweyne Siilaanyo inuu joojiyo wada hadalladaasi isagoo sidoo kale soo hadal qaaday golayaasha dawladda oo muddo dhaaf ku jira golayaashii waxaan xakamayn lahaa waa golayaashii qaranka xeer dejinta waxaan xakamayn jiray hawlgab ayay ku dhow yihiin guurtidu 19 sanadood ayay fadhidaa golaha wakiiladu sanadkii 12aad ayaa u bilaabmaya madaxweynaha sanadkii 7aad ayaa u bilaabmaya i'tiraaf iyo dunida ina aaminta oo ina aqoonsatana wala raadinaya waxaanu madaxweynaha iyo xukuumadda ugu baaqaynaa in wada hadallada halista ku qarannimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland joojiyo inta laga helayo golayaal qaran oo si hufan oo dareen wadaninimo ku dhaahan yahay u gudan kara xilalkooda dastuuriga kol haddii ay xilalkii noqdeen biil oo aanay cidina rabin inay muddadii dastuurka u xadiday xilka kaga degto wixii intaa ka badan ambad iyo uub dheer oo aynu ku dhacno ayaa inoo xigta ilaahay hayna dhowro ilaahay hayna badbaadiyo dardaarankuna waa ummad yahay tiraa ka gedmina wax suugaygiiso